waxaan rabaa inaan kula wadaago hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabi ahaanba lagu mamnuucay in hubka waaweyn iyo qoriga loo yaqaan dhashiikaha iyo gawaarida lagu dhex isticmaalo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weerar afka ku qaaday golaha samata bixinta Soomaaliyeed iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland kuwaasi oo shalay ku shiray magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. muxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud shirkaasi ka yiri faahfaahin kala duwan ayaan kaaga hayaa, balse marka hore soo dhawaada laagsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada mahadsanidin. waagaga aynu ku bilowno. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu khudbad ka jeediyey masjid ku yaala xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya isagoo kaga hadlay xaaladda dalka iyo guud ahaanba waqti xaadirkan marxaladda ay wajahayaan guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa marka hore waxa uu sheegay in aan la aqbali karin in la qalqalgeliyo amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo guud ahaanba dalka. waxa uuna diiday in magaalada lagu dhex isticmaalo gawaari dagaal iyo sidoo kale qoryaha saaran, isaga oo yiri aniga oo ah madaxweynaha Soomaaliya ayaan isticmaalin qoriga dhashiikaha iyo gawaarida dagaalka, sidaas daraadeed cid aan ka aqbalayna ma lahan in Muqdisho ay ku dhex wadato qoriga loo yaqaan baasuukaha, dhashiikaha iyo gaadiidka dagaalka. hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaya xilli mucaaradka Soomaaliya si gaar ah golaha samata bixinta Soomaaliyeed iyaga oo Muqdisho ku dhex wata gaadiidka dagaalka ay tageen mid ka mid ah saldhigyada ku yaala degmada Warta Nabadda toddobaadkii ka horreeyay, halkaasi oo ay ilaaladooda kula dagaalameen ciidamo ka tirsan booliska saldhigga degmada Warta Nabadda. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in nabadgelyada caasimadda Soomaaliya iyo guud ahaanba dalka Soomaaliyeed ay tahay mid ka wada dhexaysa guud ahaanba shacabka iyo dowladda, loona baahan yahay in qof kasta oo Soomaaliya uu xil iska saaro amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka Soomaaliyeed. sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in muhiimadda koowaad ee dowladdiisu ay tahay in laga shaqeeyo amniga, sharcigana cid ka sarreysa aysan jirin. sidaas daraadeed magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hadda wixii ka bilowda mamnuuc uu ka yahay guud ahaanba hubka waaweyn. musharaxiinta ama golaha samata bixinta Soomaaliyeed ayaa inta badan waxay wataan ilaalo xooggan iyo sidoo kale gaadiidka dagaalka oo ay saaran yihiin qoriga loo yaqaan dhashiikaha iyo sidoo kale baasuukaha, waxaana hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu muuqdaa mid ku socda musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay kulankii shalaytu ku dhex maray magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya golaha samata bixinta Soomaaliyeed ama musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland. madaxweyne Xasan ayaa waxa uu sheegay inuu in badan u tanaasulay madaxda maamul goboleedyada qaarkood oo uu la jeeday Puntland iyo Jubbaland ilaa markii dambe xitaa uu go'aansaday in uu ugu tago deegaanadooda, laakiin iyaga dhinacooda wax waliba ay ka socon waayeen. sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkii ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya una dhaxeeyay golaha samata bixinta iyo sidoo kale madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland waxa uu ku tilmaamay in uu yahay shir aan looga shaqaynaynin danaha shacabka Soomaaliyeed, isagoo ku sifeeyey shir loogu adeegayo shisheeyaha. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in musharaxiinta mucaaradka ama golaha samata bixinta Soomaaliyeed aysan aqoonin waxa waqti xaadirkan ay ka shaqaynayaan, sidaas daraadeed waxa uu yiri shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdu waxay u dareereen doorasho qof iyo cod ah. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in hore loo wadi doono dalka doorashooyinka tooska ay u aaday, sidoo kalena la dhammaystiri doono dastuurka qaybaha ka harsan, isagoo oo sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay doonayaan in codkooda ay ku celbaxaan, sidoo kalena aan loo joojin doonin koox gaara sida uu hadalka u dhigay. hadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo beegmaya xilli arrimaha doorashooyinka dalka si weyn la isugu hayo. sidoo kale waxaa gebi ahaanba baaqday safarkii uu ku tegi lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland kadib markii Axmed Madow uu booday, waxaana la aaminsan yahay in Axmed uu markii hore doonayay in uu la kulmo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena magaalada Kismaayo isku arkaan, laakiin wax kasta waxay isbedeleen markii Dani iyo golaha samata bixinta Axmed Madow mowqifkiisa ay wax ka bedeleen. waynu arki doonaa qodobkan iyo waxyaabaha ka soo baxay. Ismaaciil Daarshiin ayaan ah. waxaan rabaa inaan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Owdhegle. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AUSOM ayaa bilaabay howlgallo xooggan oo ka dhana maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. waxaan kula wadaagi doonaa khasaaraha waqti xaadirkan jira iyo sidoo kale dagaalkii ugu cuslaa oo waqti xaadirkan ka soconaya gudaha degmada Owdhegle. sidoo kale maxaa ka jira in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gudaha u galeen magaaladaasi, kooxda Al-Shabaabna waqti xaadirkan ay xaaladdu ku xuntaa. waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey ee arrimahaasi ku saabsan, balse marka hore soo dhawaada laagsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada mahadsanidin. waagaga aynu ku bilowno.
wararka ka imaanaya degmada Owdhegle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay halkaasi ay ka dhaceen dagaalo qarar oo u dhexeeya militariga Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka nabad ku soo dabaalida Soomaaliya ee magacooda loo soo gaabiyay AUSOM iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. dagaaladan ayaa waxay yimaadeen kadib amar ka yimaadeen dhinaca taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si gaar ah taliyaha militariga Soomaaliya General Odwaa Yuusuf Raage waxaana lagu amray dhammaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka si gaar ah kuwa ka howlgalaya deegaanada Bariire iyo aagga degmada Owdhegle inay la yimaadaan istiraatiijiyad dagaal oo kooxda loogu xoreynayo magaaladan istiraatiijiga ah. xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saaka aroortii ay bilaabeen iyagoo kaashanaya kuwa AUSOM weerar ballaaran oo ka dhan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. kor inta aysan dagaalada halkaasi ka bilaabanna waxaa jiray diyaarado dagaal oo ay leeyihiin militariga Soomaaliya iyo kuwa saaxiibada caalamiga ah kuwaasi oo lagu garaacay saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin degmada Owdhegle. sida ay wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan Al-Shabaab ayaa markii horeba waxay gaadiidkooda dagaalka iyo sidoo kale dagaalamayaashii ugu badnaa ka daabuleen gudaha magaalada Owdhegle. sidoo kale waxay qarxiyeen xaruntii degmada iyo buundadii laga soo galay magaalada waxayna kaliya magaalada ku reebeen dad tiro yar ama sidoo kale dagaalamayaal tiro yar kuwaasi oo ay doonayeen inay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AUSOM. ciidamada ayaa waxa u suura gashay inay la wareegaan xaafado kooban oo ku yaala magaalada Owdhegle waqti xaadirkana weli rasaastu waxay ka dhacaysaa gudaha magaalada iyadoo taliska militariga Soomaaliya ay sheegayaan in saacadaha soo aadan ay faahfaahinno dheeraad ka bixin doonaan waxa ka socda degmada Owdhegle. sidoo kale xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed si gaar ah ciidanka commandoska Gorgor kuwa danab ciidanka 14 Oktoobar iyo sidoo kale ciidamo dheeraad oo ka tirsan qaybta sektorka Uganda ee howlgalka AUSOM lagu daabulay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose si gaar ah deegaanka Bariire si ay gurmud ugu noqdaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AUSOM ee waqti xaadirkan maleeshiyaadka Al-Shabaab kula dagaalamaya gudaha degmada Owdhegle. dhawaan taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwaa Yuusuf Raage ayaa bixiyay amarka madambeysa isagoo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AUSOM ku amray in si degdeg gacanta loogu dhigo magaaladan istiraatiijiga ah ee dhacda gobolka Shabeellaha Hoose. ciidamada ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay dul taagnaayeen magaaladan tan iyo markii gacanta lagu dhigay Sabiid Caanoole iyo Bariire oo cashar loogu dhigay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. sidoo kale wararka qaar waxay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab kala horeba ay halkaasi isaga baxeen waxaana waqti xaadirkan ciidamada la filayaa in si buuxda magaaladan ay gacanta ugu dhigaan. khasaare xooggan ayaa jira oo soo gaaray dhinacyada dagaalama inkastoo waqti xaadirkan aan si dhaba loo xaqiijin karin haddana waxaa la sheegay in kooxda Al-Shabaab dhibaato weyn ay ka geysteen gudaha degmada Owdhegle iyagoo qarxiyay buundadii magaalada iyo sidoo kale xarumihii muhiimka ah ee danta guud ama loogu shaqaynayay shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale kooxda ayaa isku dayday in dadka shacabka ah ay u diiday inay ka barakacaan gudaha degmada Owdhegle waxayna doonayeen in dadkaasi ay gabaad ka dhigtaan kolka ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AUSOM halkaasi weerarka ay ku yihiin. waynu arki doonaa wixii warar ka soo kordha xaaladda waqti xaadirkan ka taagan degmada Owdhegle oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Ismaaciil Daarshin ayaan ahay.